een maanta wax badan baan jeclaan lahaa inaan idin iraahdo haddana isla markaasiti ma aqaan waxaan idin iraahdo weli noocaas ma idin soo martay wax badan baa idin oran lahaayo waxyaabo fara badan baad ila sheer garayseen ood ii soo dirteen dhanka kaleetana waxaan idin iraahdo ma aqaano anigaygan baa hore idinkaga daalay oo waxaan idinkaga daalay dhibaatooyinka qaarkood nooma iman lahayn haddii aanu dad fikirana nahay dad caqli leh nahay dad wax maqla ama kala dambeeya haddaynu nahay heerka maanta aanu joogno oo xun oo dhulka aynu liidano dhulka aynu naallo ma gaari lahayn waxba hadalkayaan idinkala hor dhicine magacayga yaasiin cabdullaahi baa la yidhaahdaa waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden waxaa la ii soo sheergareeyey dhacdo xanuun badan oo runtii muggeeda leh oo aan ilaahay uga baryayo duco ahaan in ilaahay u fududeeyo haweeneyda gabadha Faadumo Buraanbur la yiraahdo oo ilmihii markii ay dhashayba saacada kadib ba hore laga qaaday caruurtii marka arrinku waa arrin xanuun badan dadkii oo dhan baa yaacay VOA-da iyo waxaan ka maqlay BBC-da labadaba waan ka dhageystay Soomaalida oo dhan baa hadda qaylinaysa dadkii igu ogaa inaan arrimahaasiti aan u dhaqdhaqaaqo ayaa waxay ii soo sheergaraynayaan gabadhaasaa wax ku dhaceynaya siinow kaalay caawi waa wax wanaagsan weeye qof bini aadan horta in la caawiyo inkastoo gabadhan arrinteeda ay xilli micnaha meel dheer soo martay oo arrinka soo daalay oo wax hadeertan laga qaban karaba horta ayba iska yar tahayba midda kaleetana nolooma sheegin annaga sababta caruurta looga qaaday gabadha way dul martay filma videoyaal waxaa jira ilaa hadda kahor la iisoo diro aan mar iyo laba maaqaan aan eegay laakiin way dul martay sheegis waxaa la dhahaa marka lagu sheego maalin hebel waxaasaa dhacay saasay dhacday arrinkaasaa laygu haystaa exactly qaybtaas baa laygu haystaa markaas meelaad ka duulaan aad ka gashaad helaysaa laakiin marka lagu dhaho gabadhu inta badan waxay tiraahdaa alxamdulilah waan ku qanacsanahay marka dadkan aan kusoo noqday micnaha dadkan hadda ila sheergaraynayo dhahay kaale wax u qabo yacni marmarka qaarkood qaar iyaga ka mid a waxaan u arkaaba inay munaafiqaad ka tahay maxaa yeelay waxyaabaha wanaagsan oo ay igu maqleen ama igu ogyihiin ma sheergareeyaan because waxaa weeye caruur fara badan oo Soomaaliyeed ayaan badbaadin lahayn haddii waalidiintu ay heli lahaayeen warbixin iyaga maaragtay anfacaysa oo ku filan dad baa jira lugooya dadka isu haysta inay wax og yihiin wax yaqaanaan haddana meel qalad dadka ka riday qofkaas qaladka ka riday reerka qoyskaas ka riday qaladkii uu ku soconaya ilaa hadhow markuu arko qofkan qaladka sheegay arrinkiisu inuusan wacnayn oo horumar iyo meel uusan u wadin kadib buu xiriirna la soo samaynaya anigina hadhow meelaan ka qaaday meelaan u geeyey maayo ma garanayo because jidkii aan mari lahayn waxaa soo xiray oo soo haleeyay mid kaleeto asna aqoonyahani wuxuu yahay ma aqaan wax isku sheegaya ama lagu sheegaya amaba iska dhigaya oo dariiqyadii oo dhan ba naga soo xirxiray marmarka qaarkood xataa arrinkaagu u ekaanaya adoo xataa dembiba aan lahayn in dembigii lagu saaro oo aad raalli noqoto ma garanaysa marka dadkaasaytina way jiraan runtii waxaa ka mid a xataa wadaadka hadda hadlaye wuxuu yiri BBC VOA ka maqlay wuxuu yiri yani haddaan dowlad Soomaaliya ahaan lahayn dowlad Soomaaliya aan lahayn dowlad Soomaaliya maxay ka qabanaysaa hadda kahor baa waxaa jirta dhacdo halkan ka dhacday oo ahayd nin Ruusha ayaa muxuu ahaa dhibaato sidaan ay si u dhow adigu waxun baa ka dhacay dambiyo wadanka laga galay ninkii Ruushka safaaradiisu buu la xiriiray safaaradii baa waxay isku dayday marka inay safargelin soo samayso arrinkii wax ka ogaato wax kala socoto stop baa la yiri joog
meeshan sharciga wadanka Sweden gudihiisa wey waxaan ka hadlayna ma ka hadlayno xiriir diblomaasiyad kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa wiilkan ama ninkan adiga aad ka hadlaysaan baa la yiri wuxuu dambi ka galay sharciga dalku dambi ka galay waana shakhsi diplomatic ma aha qof immunity leh macnaha ama xasaanad leh maaha so marka wuxuu u siman yahay sida shacbiga Swedishka iyo isaga waa isku mid macnaha waxba lama kala qaaday haddana ogow kaas ninkaas ay dhalashadiisii Ruushka ahayd buu haystay marka sida aan qiyaasayo gabadha Faadimo Buraanbur waxaan u malaynayaa dhalashada Swedishka inay qaadatay ma hubo ma aqaan anigu gabadhaas weligeena ma arkin inaan ku dambaabo waxna ka sheego ma doonayo waxba kama ogeeyeen laakiin qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboorka Swedishka uu qaato macnaheedu waxa weeye dhalashada Swedish buu qaatay maqaarkaaga ku madoobaad haddaad rabto laakiin Swedish baad tahay Soomaaliya wax shaqo ah oo ay kugu leedahay ma jirto luqadaas afka Soomaaliga aad ku hadlaysid ma aha luqadana meel kasta laga baran karaa laakiin Soomaali ma tiid maskaxdaada gasho caqligaaga gasho so marka dadka Soomaalida ah oo wadanka gudihiisa jooga laakiin caqligoodii iyo maskaxdoodii ay wadankii ku maqan tahay oo muxuu ahaa qaska iyo dhibaatada iyo qurunka iyo xumaanta uun jecel qaarkood wax sheer gareynaya waxaan ogahay inay munaafaqad ka tahay waxaan ogahay inay iyaguna waxba u qabanaynin kuwii wax u qaban lahaana macnaha ay ka tahay eega gabadhiiba waxaasaa ku dhacay alla waxaasaa ku dhacay ay kala ay ka tahay because anigu ma arkin qof islaam sheeganaya oo muslim ah oo loo somo la shahaato yani ashahatan ka dhihila oo intuu yani daqiiqadna wuxuu qaybinayaa qur'aan iyo xadiis iyo wadaaduu qaybinayaa secondka ku xiga facebookyada hadda aragto secondka ku xiga wuxuu qaybinayaa niika iyo naaga qaawan marka ku xigana wuxuu qaybinayaa maamul goboleedyo iyo dawladda is haysta marka ku xiga nin buu amaanaya qabiil ahaan ku amaanaya mar kaleeto nin buu caynaya halkan ka caynaya war annagii oo dhanba waxaan noqonay bahalka remote-ka kaleeto oo TV-go marba qof baa ku bedelaya qof baa wuxuu ku hayaa hoggaanka ku haya marka sidii baa noqotay waxa aan ka wadaa waxa ay tahay oo ujeedadaydu hadda aan u soo socdaa waxa ay tahay warbixinta fiican oo wanaagsan oo aan anigu sameeyo oo raad raacna leh wanaag iyo u sameynaysa iyo maaragtay horumar dadkayaga walaalayaal kuwaas sheergareeya isu sheergareeya oo waalidiinta kaleetona u gudbiya si aan uga istaagno oon uga badbaadno in dhibaatooyin noocan iyo kuwa kasii badanba aynu helo kuwa sameeya gabadhan walaasheen ah oo dhibaatada ay ku dhacdayna iyadana u duceeya insha Allah anigu arrinkeeda waxaan laga qaban karaa ma aqaan wadaadka sida hadda kulay uu sheegay wuxuu yiri arrinkeedan ku jirnaa anigu kulay sidaan ogahay baaritaanka wuxuu qaataa 3 bilood ma garanaysaa ilaa 4 bilood buu qaataa marka laga yaabo inuu keeda uu soo degdegayo maadaama baaritaan iyo hore loo sameeyay oo baaritaankii hore dib loogu noqon karo u malayn maayo baaritaan cusub inay sameynayaan hay'ad dawladeed oo la aaminsan yahay ayaa baaritaan ku sameysay marka ma jiro sabab baaritaan cusub loo bilaabay warqadihii hore baa la isticmaalaya marka laga yaabo inay hal isbuuc noqoto baaritaankaasi ama aragtidaas ka bacdin maxkamad loo gudbiyo laakiin maxkamadda la gudbinayo lafteeda waxaa hor yaala mar walbaba waxyaabihii caruurta hore looga qaaday so marka ma garanaya arrinkan waxaa lagu sameeyaa dadka muqaadaraadka aad u isticmaalo uga go'ay iyo waxaa lagu sameeyaa dadka maskaxdooda ama caqligooda uu hooseeyo oo aanan lahayn fikir iyo caqli ku filan oo caruurta ilmaha ay dhaleen ay ku gacan qaban karaan midda saddexaadna waxaa kale oo laga qaada caruurta sidan oo kaleeta marka ay dhalaanba marka la hubsado ama la og yahayba hooyadan caruurta dhashay ama aabaha iyo hooyada waalidkan caruurta dhalay inaanay ilmahaasi timicnaha ku badqabi karin ama uusan ku noolaan karin gurigaas si ammaano ah yani gurigaas uusan ugu noolaan karin ayaa laga qaadaa marka ay saa u dhalaan marka arrinka gabadha walaasheen Faadimo Buraanbur lagu haysto arrin ani ahaan aan saan u arka waa arrin aad iyo aad u weyn arrin sahlan ma aha ma aqaan VOA-da ma ahayd mise BBC da labadooda mid buu xataa wadaadka ka yiri arrin weyn baa lagu haystaa buu yiri so kaas baan anigana aan ila tahay una malaynaya BBC da maanta oo
khamiis ay tahay baad ka dhageysan kartaan, ka daawan kartaan insha allah. filinkan isla maanta baan idin soo gudbinaya haddii ilaahay idmo. waxaan idin oran lahaa walaalayaal, waxa wanaagga ah qaybiya. haddaad Soomaali aad jeceshihiin oo gabadhan sida aad uga qiirooteen micnaha aad caruurta kaleetana uga qiiroonaysaan, waxa wanaagga ah oo aan wadno iyaga qaybiya. mar baan isweydiiyey, nin baan saaxiibanahay baa xataa isu kaa weydiiyey. waxaa la yidhi war dadkeennan siyaasiyiinta iyo dadkeennan, anu siyaasi waa ahay laakiin siyaasi xil haya meehi, anu cidno ima tijaabinin oo cod ima siinin weli, ma garanaysaa. laakiin kulley dadkaas baan ku jiraa. maxay la aamusan yihiin intooda badan? wax siyaasi oo dhaqdhaqaaqo ama wax sameeya ama sideedoo kaleeto wax sameeya ma jiraan, ama micnaha kulley anigu ma aanan arkin, ma maqal. maxay u aamusan yihiin? because dadku dad baysan lahayn. anigaygan kuu hadlaaya micnaha waxaan taaganahay, banaankan taaganahay, dad malihi. waxaanan u lahayn micnaha warbixinta iyo waxa wanaagsan oo aanu soo bannaan dhigno, dee dadkii ma gaaraan. waxa wax gaarsiin karana waa adigaas hadda ay dhegeysanaya. so marka anigu ma garanayo inay xaasidnimo ka tahay iyo inay maaragtay wax kale ka tahay, aniga ma garanayo, ilaahay baa garanaya. laakiin waxaan ogahay dadka dhinaciisii baan ka dhintay. runtii ma dhihi kari anigu dad Soomaaliyeed dad baan haystaa, ma dhihi kari. waan arkaa qofka markuu sheer garay, anigu waan arkayaa page baan leeyahay, pagekayga uu iisoo sheegaya, wuxuu leeyahay hebel baa sheer garay. waxa wax sheer garayso ama dadka qalbiga wanaagsanna waa dad dhowr ah weeye, hadday ugu badato 4-5 qof weeye, ma garanaysaa. waana shantoodana waa aqaanaa. 3,000 ku dhawaad ah baa pagekayga ku jira. bogeyga caadiga ahna ilaa 5,000 baa ku jirta, micnaha facebookgayga caadiga ku 5,000 madaxa la sii gelaya, ma garatay. marka dadkii baan ka dhimanay, annagaa dadka ka dhimanay. marka waxyaabahan oo kaleeta markay dhacaan, sida hadda faaranburaanbur oo kale ku dhacaan, dadkii way la soo baraarugayaan, way la qaylinayaan, way la boodayaan. marka booditaankaanayti ma iman lahayn haddii tale iyo tusaale يعني aan isla wadaagi lahayn. caruur kaleeto waxaa jira haddeertaan magaalada Youtubore, xalay la ii sheegayay magaalada Youtubore hooyo 7 caruur laga qaaday. 7 caruur hooyo laga qaaday magaalada Youtubore dhexdeeda. xalay baan ii sheegay, ma garanayo. marka anigii hay-ad ma ihi, miskiin yaroo iska shaqaystaan ahayo, muxuu ahaa arrimihiisa iyo filmadan iyo talooyinkan tusaalayaashan iyo dadka soo wacay iyo kuwa caawinaada raba iyo yacni ciiday ka badan yihiin. dhaqaala wax ku fulina ma haysto, urur ma haysano, urur ma haystaan dhihi lahaa, dhaqaala wax ku fulina iyo waxaasiti ma haysano. so marka waxay noqonaysaa uun waqtigayga firaaqada aniga aan lahaa, ama aan wax samaysan lahaa, ama maaragtay gurigayga hagaajisan lahaa, ama saaxiibaday aan la kulmi lahaa, ama suuqaan iska aadi lahaa oo iska soo sheekaysan lahaa, inaan meel fadhiisto, qof wax la kulmo oo wax u qorqoro, wax ka haabeeyo oo meesha tala ka siiyo, kan ku soo waco, kan ku soo waco, waa ku daalaysaa. marka taas wey waxaan ku leeyahay, micnaha anigu dad ma haysto. dadkaygii waa ma aqaan meelay aadeen. iska daa kuwa aanan dhibaatada haysanin oo meelaha facebookyada iyo meelaha iigu jira, iska daa. war kuwa aniga caawinaada i weydiisto oo aan caawiyo, ayaa maalinta aan caawiyo ayaa iigu dambaysa. xitaa hadday facebook ku jiraan, wallahi waxaa ku adag inay dhahaan salaamu calaykum yaasiin. salaanta muslimka iyo gaalada inay iga qaadaan ba wallahi baa dhibaysa xataa. marka heerkaasaan taaganahay. qof ku caawiyey oo intaa ku caawiyey way jiraan, wallahi waa idinla qaybsan karaa. kuwa waxaa jira aan qoraallo fara badan isdhaafsanay, kuwa waxaa jira xataa sharciyada aan ka caawiyo oo xataa sharciyadii helay iyo deganaanshaha dalka helay oo waad mahadsantahay xataa ii soo qoray. laakiin yacni dad ila socda maaha. يعني دنتا دبكان إتمانتا دوسن قفك أسرع وسن هيسنين وكسيحنا يا تطلع برنامج كجيفة. ورواكوين شيء معناها السلام عليكم مسلم كي قال هذا إسلام كي سومالي النمذي بقى حتى مرمرك قاركو حتى إيسن كقاعدين. غريزة. waxay qof kaleeto walaal ah ay uga faa'iideeyaan iska dhaaf. isagiina iyadiina wax ma faa'iideysanayso, waxna uma faa'iideysanayso. dadkii wax faa'iideysan lahaana way ka sii xasdiyaan si aanay u sii gaarin oo ay u sii faafin. marka maalin walba waxaan ku jirnaa marka dhibaatada oo degdeg ah ama acute ah, macnaha inaan xalino. maalin walba ma jirto macnaha maalin aanu ka hortag wax xalinayno. maalin walba dhib dhacay un baan waxaan isleenahay ka daba tag.
so marka heerkaas waa waxa iga keenay inaan iraahdo ereyga micnaha anigu ahaan kuley anigu nafteyda aan ka hadlo ummadda kaleeto borto banaanka iga dhiga anigu dad ma haysto dad la-aan baa ay haysa haddana agagaarkayga ka buuxaan facebookyada ka buuxaan instagramyada ka buuxaan snapchatyada iga buuxaan haddana cidlaanu taaganaa dad ma haysano ilmihii soomaaliyeedna saasay u baaba'ayaan hadhowna markii wax dhacaan waxay ku leeyihin alla kan baa dhacay kaalay caawiyo kaalay inta caawiya oo adiga kaalintaada caawi marka adiga kaalintaada xaggee ku maqnayd marka aad dadka kale ood u diraysid aad leedahay kaalay wax sameeya adiga intay ku maqnayd kaalintaada intay taalaa so marka dhibaatooyinkaasiiti baana haysta marka halkaas ayaan ku joojinaya insha allah cajiradeydina way dheeraatay waxaa iga muuqda muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa carab badan baa iga muuqato waxaa weye waxaan ku carooday micnaha ummad uun iska socoto oo meelay u socotana aanan jirin hiigsi lahayn hami lahayn dhaga lahayn oon kala maqali kala dambeyn aanan lahayn yani iyagu uun isku taagan magaranaysa waxaa laga yaabaa mid kale Soomaali ah baa lu goynaya gacantuu qabanaya lugtuu qabanaya wuxuu isleeyahay ninkan yuusan dhaqaaqin adduunkana horumar bay gaareen kooda waxa fiican sameeya novelay siiyaan micnaha hadiyada la siiyaa iyo marti sharaf baa la siiyaa oo maamuus baa la siiyaa oo waxbaa la siiyaa annagana waxaan siin iska dhaafe waxaanan xataa aanan u ogolayn inaan dhahno muxuu ahaa hambalyo inaan dhahno umba xataa noogan de ilaahay baa noo qadaraan u malaynayaa waa qadar ilaahay weeye ilaahay baa naga dhaliyey Soomaali naga dhaliyey maxaan kala samaynaa marka magacaygu Yaasiin Cabdullaahi baa la yiraahdaa waxaan nin kala soo hadlayaa magaalada Göteborg dalka Sweden inta aan program sidaan oo kaleeta aan ku kulmayn doono haddii ilaahay idmo waxaan idinkaga tegayaa warsan iyo warsan insha allah asalaamu calaykum nabadey